بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka oo taqaana ama maqashay magacayga maqal iyo muuqaalba. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Axmed Caabi. waxaan ku noolahay in muddo ku noolaa dalka Ingiriiska. waxaan caawa aan jeclaystay in aan la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto barnaamij gaar ah oo loogu magac daray barnaamijka isku daaweynta biyaha kulul iyo liinta. barnaamijkan oo muddo aan ku mashquulsanaa barashadiisa kadibna aan sameeyey tijaabooyin fara badan. insha allahu tijaabooyinkiina ay ka soo baxeen maxsuul wax soo saar ah. barnaamijkan biyaha kulul waxaa lagu daaweeyaa cudurro ku dhaco jirka bini'aadamka. jirka bini'aadamka waxaa ka mid ah xanuunada ku dhaco madax xanuun, indho xanuun, san xanuun ama sanboor ama caabuq, dhuun xanuun, wadna xanuun, keliya xanuun, beer xanuun, sanbab xanuun, sonkor xanuun, dhiigkar, calool xanuun, kaadi xanuun, xanuunka kansarka ee caloosha, xanuunka kansarka ee naasaha, lafagaraac, cagabalbal, caado wareer oo ku dhaca dumarka, malaria. intaas iyo in ka badan oo jirka ku dhaco ilaa 24 cudur waxaa walaalayaal lagu daaweeyaa liinta aad arkaysaan iyo biyaha kulul oo qandaca ah. biyo aad u zaa'id ma aha, waa biyo markii shaaha la karinayo saad aragtaan oo aan lahayn sokor, caleena ma laha. liintana waa midaas oo laba qaybood laga dhigahayo. daawadan oo runtii ah daawo cajiib ah oo runtii qofkii isticmaalo waxyaabo badan ooga maarmahayo oo isticmaali jira awal, ama daaweyn ha ahaato ama waxyaabo kiimika ha ahaato uu oga maarmahayo. liinta mucjisadeedu waxaa ka mid ah markuu nabar kugu dhaco liinta haddaad marisid, mathalan sakiin baa ku jaxday, bir baa kugu dhacday, xabad baa kugu dhacday, markiiba haddaad marisid stop bloodding, dhiigga waa istaagaya. sidee loo isticmaalayaa? goormeesaa la isticmaalayaa? duration-ka ilaa waqtigee la isticmaalayaa? su-aalahaas oo dhan gadaal bay ka imaanayaan. liintan waxaa la isticmaalaa aroortii calooshaadoo maran, salaada subax markaad soo kacdid. dadka caado waxaa u ah shaah iyo qaxway cabbaan, laakiin middan daaweynta ah waa ka duwan tahay. qofka aroortii markuu soo kaco isagoo waxba cunin, hadduu tarmuus haystana habeenkii uu biyahan qandaca ku shubahayaa. hadduu shaahi markaa u karkarana caleenta iyo sokorta iyadoo lagu dambi keli waa aragtaan, waa halkaasuu yaallaa. jeexaasaa lagu shubayaa, waa jeex ma aha hal xabo, jeex wuu ka kabanayaa qofka, wuu dhammaystanayaa. then koobkii labaad ayuu ku shubahayaa, wuu ka kabanahayaa. koobka saddexaad saasuu asna ugu shubahayaa. 3 koob iyo 3 jeex markaa qabtid, 1 saac kadib unbaa wax cuni kartaa, lagu ogolyahay. quraacdaadi wixii ilaahay kuwa calfay adaa yaqaana. 1 saac markaa sugta kadib inta halka saac
waqtiga aad sugaysay waxaad la kulmaysaa calaamado kala duwan. maxaa ka mid ah calaamadaha marka? calaamadaha waxaa ka mid ah markii aad halka saac ku jirtay waxaad arkaysaa sweat dhidid badan ayaa arkaysaa, yaa markii waa arkaysaa, aad dareemaysaa daaco badan baad arkaysaa, kaadi badan baad arkaysaa, neef badan ayaad arkaysaa ama dhuuso badan baad arkaysaa, saxaro badan baad arkaysaa. waxaad kaloo arkaysaa obataydka ama cuntadii oo kuu furantay markiiba. waxaad arkaysaa fudeyd badan oo kuu yimid. waxaad arkaysaa wajac waxa la yidhaahdo confused body, marba meel lagaa qabto, meel daanka lagaa qabto, madaxa lagaa qabto, qandho yaryar oo aslada waxaan warba cudur cusub oo kuu keenay laakiin aan ahayn cudurkii uu yahay shaqadii linta ay qabanayso. intaas markaad aragtid shaqadii way bilaabatay. cuduradii jirkaaga ku jiro dhan waxay kaaga soo baxayaan ama neef ama aaryo ama dhidid ama saxaro ama kaadi. intaasoo dhan midba qayb bay ku baxaysaa. liinta waa idinkugu celinaya mar labaad si loo isticmaalayo waa aragtaan, waa jaxliin biyihii qandac ahaa halkaasuu iigu jiraa. koobka liinta saasaan ugu miirayaa. markaan saa ugu miiro waa kabanahayaa, saasaan u kabanahayaa, waa dhammaysanhayaa, halkaasaan dhigahayaa. koobka markaan dhammaysto mar labaadaan soo qaadanhayaa, haddana waa ku shubahayaa. biyihii waa ii yaalaan meesha, waa ku shubahayaa sidaas. haddana waa ka kabanahayaa, waa dhammaysanhayaa. marka saddexaad koobkii biyahan ku shubanayaa ii yaallaa, liintii baan saa ugu miirahayaa. intaasoo dhan markaan sameeyo hal saac wax ma cunisid. maxaa dhacaya marka? liinta maxay qabanaysaa? faa'iidada liinta leeda maxay tahay? biyahaanse kullu muxuu leeyahay? qofka bini aadanka jirkiisa markuu wax cuno wuxuu leeyahay faat wax la yidhaahdo. biyahan kullu shaqo kale ma qabanaysa. faatkaas 360 xubnood buu ilaahay jirkaaga ka koobay. 360 xubna xidid baa mara. faatk waxaa raadsanaysa biyaha kulul oo qantaca. liintana waxay raadsanaya wax infection la yidhaahdo dhan oo 24 cudur ah. waxay kaaga baxayaan marka intaasoo dhan inay kaaga baxdo dhidid, daaco, kaadi, dhuuso, saxaro. intaasay kaaga baxayaan. intaa markay saa kaaga baxdo su-aasha waxaa weeyaan cuduradan intee xilli ama intee waqti ayay ku baxayaan? sida daraasaadka ka soo baranay culamo khubaro jarmalka ah oo daraasaad sameeyey waxay sheegeen in 10 beri u horeyso uu madax xanuun kaaga baxayo. ilaa cudurka kow marka horeba madaxuu ka yimid, madax xanuun 10 beri buu kaaga baxayaa. isbaalka la yidhaahdo dhiigkarka 25 beri buu kaaga baxayaa. gaaska 10 beri buu kaaga baxayaa. waxyaabahan kale oo cagabalbalka ah, lafagaraaca ah, alerjiga ah waxay kaaga baxayaan 15 beri. waxyaabahan aniga hadda aan sheegahayo oo cudurada ay waqtiga ka baxayaan waxaan anigu ku soo sameeyey daraasaad ama practical aan ku soo sameeyey magaalo la yiraahdo Luuq Ganaane oo aan 3 bilood u fadhiyey. dadka magaalada ku nool iyo baadiyaheedana waxaa lagu qiimeeyey ilaa 50,000 oo qoys. dadkaasi maalintii aan u bilaabay dadka qaarkood ma aaminsaneen waxaan inay ay wax si fudud ku baxay yihiin, laakiin nasiib wanaag markii ay isticmaaleen waxay la kulmeen faa'iidooyin badan
aniga barnaamijkan ma aha barnaamij lacag ma aha barnaamijkan barnaamij interest ma aha barnaamijkan waa barnaamij sadaqa jaariye ah aan ugu talagalay waalidiinteydii aabbahay hooyaday inaan sadaqa jaariye oga dhigo juhdi badan waa geliyey waqti badan waa wuu uga qaatay barnaamijkani fadalka alxamdu faa'iido badan oo dadka ay ii sheegeenna way ka heleen liintan maxay faa'iido leedahay waa su-aal isweydiin karo liintan faa'iidada leedahay waxaa weeyaan hadduu xanuunku qabto meel kastaba ha kaa qabto xanuunka madaxa kaa qabto caloosha ha kaa qabto wadnaha ha kaa qabto markiiba liin jeex kala goyso meesha xanuunka mari qadar 10 daqiiqo kadib insha allah wuu kaa baxayaa waana tijaabinay jilbaha dadka aan tijaabada aan ku qaadnay waxaa ugu badnaa dad jilbaha ka fadhiyey oo salaada aan tukan karin oo dhulka fadhiisan jiray markay isticmaaleen liintii jilbahana ay marsadeen falilaahi alxamdu waa ka kaceen dad badan aan hadda magacyadooda aan koobi karin liintaani faa'iidadeeda waxaa ka mid ah hadduu dibqalooc ku qanino hadduu bahal ku qanino hadduu aada kufto oo murgacato hadday xabad kugu dhacdo intaba liinta haddaa isticmayso stop dhiig waa istaagayaa intana waa tijaabinay waa aragnay kaneecada baasha la yidhaahdo oo soomaalida aada u dhibtay oo dhibaato weyn ku hayso bal isku day meel kaneecada inaad gashid oo fara badan ka hor intaa gelin liintaa ismari jidhkaaga mari madaxaaga mari dhuuntaada mari meel kastaba mari nigis xiro dhex fadhiiso meesha kuma taabanayso korkaaga ma taabanayso waan tijaabinay waa soo aragnay kanaaca kuma cunayso waxyaabaha markaan biyaha cabaysid ka mid ah kanaacadan oo qofka liinta cuno ukun bay kanaacada reebtaa exkaas gadaal buu ka soo baxayaa waxaa ka mid ah dadka soomaalida xanuunada ugu badan oo hadda aan tijaabada kusoo sameynay gaaska baabasiirka liinta markaa cabdinta kaa soo baxayaa si kale oo farsamo waa u isticmaali kartaa jeexaas liinta waa aragtaa marka aad qabaysanaysid baashaan meesha wareega muwaladka ayaa marinaysaa markaad taabiso dabcan bal ayay leedahay waa boodaysaa haddana mar labaad ku celinaysaa waad boodaysaa mar saddexaad ku celinaysaa waa boodaysaa mar afraad haddaad taabsiisid dawadii wareegeedii finish bal malis waxyaabaha mucjisada liinta ilaad waxaa ka mid ah cuncunka oo soomaalidu aada allergic indhaha dad baa ka qaba allergic qofkii allergic indhaha ka qabo markiiba uu arkay inuu ay xoog yahay allergicdiisa liintuu qaadanaya tif ayuu ka siinayaa halkaan tif ayuu ku siinayaa bel ayuu indhahaas ku siinayaa markiiba hurduuqa ayaa qabanayso wuu ka tegaya liinta waxaa loo isticmaali karaa oo cajiibka ah ilmaha markay xanuunsadaan oo limonia ama kolba-ariyo ama hergeb ay ku dhacaan markiiba liintaa la mariyaa waa lagu huuriyaa wuu ka boodayaa insha allahu faa'iidada waa wax la yaab leh oo cajiib ah oo liintan laga helayo laakiin dadka ma oga sababta magaalada luuq aan u doortay waxaa weeyaan luuq liinta ugu badan ilaa 300 ilaa 400 oo beer ugu yaraan ayaa agagaarkeeda laga beertaa liintan ilaa doolow ilaa gobolka gadow dheh ilaa baar dheer dheh ilaa muxuu ahaa bu-aale dheh inta webiga umuro uu dhan liintan ayaa laga isticmaalaa maca daalika dadkii ma yaqaanaan sida loo isticmaalo faa'iidadeeda ma yaqaanaan taasi waxay keentay aniga waxaa igu kaliftay inaan aado magaaladaasi luuq oo runtii liinta faraha badan
oo ka baxda haddana dadkeesi ay dhibaato weyn ay hayso oo ay aqoonsi u isticmaalaan falilaahi alxamdi markaan hadda u tagay oo aan barnaamijkii ku ballaariyey u sheegay way fahmeen magaalada luuq haddaad tagtid salaad subax marka la tukado dadkoo dhan waxay haystaan tarmuus biyo kulul maqaayadihii biyaha kulul ayaa la isticmaalayaa biyahaasi kulul marka hal saac kadib qof walba dantiisu ayuu qaadanayaa arrintaasi waa arrin ku cusub deegaankaasi aniga runtii markii aan sameynahayay daraasaadkii waxyaabaha aan islahaa dadkaygii oo aad u dhibaataysan oo abaaro badan ay soo mareen oo musiibo badan ay soo mareen uguma aan talagelin aniga in wax interest la yidhaahdo aan ka qaado ilaahay dartiis ayagana way ku caafimaadeen anigu duca un baa liisoo gudbinahayay ducadiina waa soo qaatay insha allah anigu waa ka soo gudbay 22 waxaa Mandheera barnaamijkaasi waxaan arkay hotel la yiraahdo Mandheera Plaza groupka ugu horeeyay oo hotelka shaqaalihiisa baan u sheegay ayagina ma sha Allah way fidiyeen kadibna waxaan u soo gudbay magaalada Nairobi oo 23 aan imid muxaadaradii ugu horeysay waxaan ka qabtay masaajidkan hadda caawa laga duubahayo barnaamijka ilaa 5,000 oo qof ayaa fadhiday laba maalin ayaan ka sameeyay muxaadarada isku daweynta biyaha liinta biyaha kulul iyo liinta runtii dadka aad bay u nafiseen way qaateen ma sha Allah haddana waxaan go'aansaday marka in aan suudiyaha la yiraahdo Salaf Media oo masjidka sigis ku dhex yaala inaan barnaamijkan aan ku qabto ama aan ku duubo sababtana waxa weeyaan malaayiin qof intaas ayaa ku xiran muxuu ahaa Salaf Media oo daawada barnaamijkayga aniga waxa ugu weynaa waxa weeye qofka markuu barnaamijkan sameynayo markuu ku caafimaado qof kale walaalkiis inuu u gudbiyo dadka aan maqal codkayga asaga inay codkiisa maqlaan dadka ay gaarsiiyaan waxaa jira dumar fara badan oo runtii xanuunka la yiraahdo caado wareerka uu ku dhacay intaan tijaabada ku jiray luuq oo muddo badan caadada ay ka maqneed walillahi alxamdi ilaahay waa u soo celiyay caadada dad badan oo masaajidada fadhi ku tukan jiray way istaageen marka liintan faa'iidadeeda hadda baa la ogaaday adduunka dhaqaatiirta weligood waa sheegi jireen liintan waxay dhihi jireen biyaha hala cabo dhaqaatiirta biyaha hala cabo laakiin dhaqaatiirta biyo liin kulul ma sheegi jirin anigu markaan wixii aniga tijaabada u horeeyay isku sameeyay oo London intaan joogay aan sameeyay runtii wax badan baan dareemay sokorta xanuunka la yiraahdo waa laba nooca taabanka la yiraahdo oo caruurta ku dhacdo iyo nooca kale oo injectionka dadka aan arkay dadkii sokorta tabletka qaadan jiray oo kaniiniga qaadan jiray waa 30 casho oga bixin bacdama aniga aan joogay 9 casho 3 bilood baan fadhiyay reportka la isoo gudbiyay 85% dadkii qolada wixii gaas qabay 10 bari bay uga baxeen wixii dhiig kala qabay 20 bay uga baxeen wixii sokor qabay 30 bay uga baxeen wixii cuncun waa 3 bari iyo 4 bari cuncunka ugu fudud ma garata wuxuu kaloo liintan idaawisa ila dagaalantaa faatiska waxa la yiraahdaa dadka buuran oo cayilan dad badan oo luuq markaan tagay aad u cayilna ayagoo waxaan arkay ma sha Allah dharkii oo dhan ay ka dhaceen xanuunkan la yiraahdo sanboorka ama caabuqa liinta dadka waxaa loo isticmaalaa ayaga biyihii cabidiisana gadaal baa wixii ka soo baxayaan ama waxay kaaga imaanayaan dhidid ama waxay kaaga imaanayaan daaco ama waxay kaaga imaanayaan saxaro ama waxay kaaga imaanayaan luuso intaas waxaa ku sii dheer xanuunka muxuu ahaa caabuqa oo sanboorka oo qofka maanta oo dhan uu
برق وكاي لينتو تفكسين يسنك isgoon waa tegayaa cununka indhihii markuu kaa soo bil bay hal mar kulaysa waa tegayaa waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba aan tujarib weyn ku soo samaynay oo aan soo aragnay waxaan jeclahay dadka i daawanahayo oo shaashadda iga daawanahayo in ay barnaamijkan ka faa'iidaystaan dadka islaamka ah oo dhan oo walaalahood ahna in ay gaarsiiyaan qofka kale uu gaarsiiyo ajar buu ka helayaa asagoo markuu gaarso anna ajarka qayb baan ka helayaa waa fursad qaali ah liinti lacag badan kuguma fadhido biyihii lacag kuguma fadhido ninkii dhakhtarka oo ama kusoo gaarsiinahay lacag badan kuguma fadhiyo haddii intaas haddaa isku heshay oo aad ka faa'iidaysan weydid waa dhibaato waxaan idiin sheegayaa liinta waxay leedahay miro dadka liinta ka shaqaysto biyaha waxaan u sheegayaa mirahaas aad arkaysaan dhibaatuu keenaa haddii laisku siido oo la jarjaro oo mashiinka la geliyo liinta oo mirihii lagu siido maxaa dhacayo mirahan waxay sameeyaan dhibaato xagga ragga ah biyaha waxay ka dhigayaan ragga fuunto waa khatar walow dadka qaarkood aqoon ahaan bay u lahaynba markay isku siidahayeen laakiin baaritaanka la soo sameeyay biyaashaas iniinta khatarteeda leeda waa laga bixiyaa markaad wixii kale aad isku soo siidaysid oo liinta dhexdeeda waa ku siidi kartaa laakiin iska ilaaliya hana roogina liinta marka keligeed aad isticmaasho oo dhuuqdo oo wax badan ama keligeed seeka ahaan u isticmaashid cillad waxay kugu keeni kartaa xagga dhiig yaraan waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha aan ku soo aragnay tijaabada oo dadka aan ku sameynay cudurrada ay liintan iyo biyaha kula dagaalan waxaa ka mid ah gooryaanka dadka intiisa badnaa 80% markaa aan weydiinahayay xanuunka xagu ka haya halkaana liiga dhigayha bogga oo bogga umagaarihaa 10 bil kadib qofkii saxaro buu keenayaa eer buu keenayaa dhiikarbu waa caafimaada dadka fadhiyey oo jilbaha ka fadhiyey dadka barara oo xanuun bararkaas keeno liinta markuu Soomaaliya waa nafisaya liinta marka waa wax mucjiso ah xanuun baa ku qabtay adoo guriga dhex fadhiyo markii inta barasmal iraasan liinta soo qaado waa inaad ismarisaa meesha jirka marisa madaxa mari kale adigoo socdo ayaad talaantolotay waa murqacatay liinta markiiba mari adoo isbitaal iyo meel iyo wax kale la aadin liinta neerfaha dadka salalka qaba xanuunka gariirka saa u gariiro waa la mariyaa hadduu nabar meel uu kaaga soo baxay oo aragtay inuu bogsoon waayo xanuun kugu hayo waa la mariyaa si fiican baa loo mariyaa habeenkii waxaan kula dardaarmayaa dadka waayeelka ah odayaasha iyo haweenka markay saxanayaan xabad liin ha soo jeexdaan waxaa laga yaabaa qaarkood dhabarka in laga hayo waxaa laga yaabaa qaarkood jilbaha in laga hayo waxaa laga yaabaa qaarkood muuqaha laga hayo waxaa laga yaabaa qaarkood cagabalbal inay qabaan waa la ismariyaa habeenkii gees ilaa gees indhaha jirka subaxii waxaa soo baxaysaa adigoo maasha allah ah fay waxyaabahaasoo dhan marka liintan ayay ka dhalatay waa wax mucjiso ah aniga runtii jaabkayga kama baxdo waayo bini aadan baa ahay bir baa igu dhici karto waxaa waa ku fikiraa haddii ma haysto maxaa markiiba emergency ama isbitaal ima dhabo waa markiiba waa inaan liinteedii waa wataa baasheedii yareed mindida waa inaan markiiba ismariyaa wax dhib ay u keenayso islaamaha ma jiraan kuwa uur kale waa wax nadiif ah xataa dadka TB-da qabo oo daawada qaato hadday isticmaalaan inuu wax u zaa'idsan mooyaan wax dhibaato uma keenayso effect inta loo qaan joogay dad TB qabo su'aalaha soo weydiiyaan kuwa dhaqatarkii wala cabbi kara wax dhibaato ma laha liintan marka waa mucjiso ilaahay xaggiisa ka timid
oo maasha allah ah oo dadkiina ay ku ladnaadeen dabcan wadankii aan ka imid ahaa hadda oo gado la yiraahdo dadku way iswada gaarsiiyeen telefoon ba isku soo wada gaarsiiyeen anigu runtii boqolaal qof aan maalintii isoo jirta anoo luuq joogo leeyahay doctor waa maqalnay lintaas nin baan soo gaarsiiyey ninkiina aad buu noogu amaanay hayeesha codkaagaan rabnaa konta qof 6 qof aan ku fadhinaa xalqa weeye inaad adna noo sharaxdid ku qola kala ku soo wacaysa anagu waa isticmaalay ما شاء الله أنا قاس بنقبي وايقى بحي أنا ذكر بنقبي وايقى بحي أنا على الحنون بنقبي وايقى بحي ما شاء الله تذكر وذكرتي إلى هذا وحربا دتك مقلة oo islaamka ah meel kasta joogaan inay barnaamijkan dad kale u gudbiyaan wax dhibaato ah oo keenaysa malaha wali qofkii oo ay wax shaki ay kaga jiraan aniga facebookayga waa abdi way isoo gudbin karaan to ilaahay ilaahda teleefankaygana waxay ku arki karaan muxuu ahaa facebooka oo ingiriiska ah waxaan jeclahay dadka Yurub aad ugu nool oo qabo xanuunada kala duwan oo neerfaha ah xanuunada kala duwan oo cancerka iyo kamid yihiin waxa soo dhan aad bay linta ugu fiican sababtoo waxaan ku tijaabiyay dhowr qof oo qalliin loo waday operation loo waday dadka waayeelka ah oo runtii muddo badan xanuuno badan la fadhiyay leenta markay daa'imaan insha Allah way fiicnaanayaan waayeelada dumarka sidoo kale way fiicnaanayaan dad badan oo aan la kulmay oo Hindiya aad for example xanuun bay u aadaan xanuunkii lacag ba fara badan baa soo baxda haddana ayagu sidooda ku soo noqda laakiin leentan waa garantiya qofkii isticmaalo waa antibiotic ajaa'ib ah waxaan baabi'iyay qofka soo hadda maqlaa daawana hadduu meel u ka xanuunsan yahay oo jirkiisa kamid ah jeexninta ha qaato ha mariyo ha ismariyo ha iskuro ha fiiriyo dadka nervionka oo xanuunsan nervaha ha ismariyaan habeenkii iyo maalintii waxyaabaha leentani luuq markaa imaan hayay intaan waa 10 xabbe 10 kan xabo oo hadda saaran luuq waxa la gaday 1 shilin hadda markaan ka soo tagayayna waxa la gadayay halka xabo 1 shilin taas macnaheedu waxa weeyaan faa'iidada dadka ummadii oo dhan baa isticmaalaysa inkastoo yiraahdeen aabi liinta uu ku qaaliyay adna waxaan leeyahay liinta ma qaaliyay faa'iido badan baa haysan waxa yeelay dad badan oo u safri jiray xamar ayaa ka baaqanay dad badan oo Nairobi u safri jiray ayaa ka baaqanay dad badan oo Mandera u safri jiray ayaa ka baaqanay waxaan tala ahaan ku siinaa marka hore intay dibadda aadin balleentani ha isticmaalaan sababta leenta u isticmaalay waxa anigu dhowr qof nin 2 qof waa arkay oo xanuun operation ah qalliin ah Nairobi iyo Hindiya aan u sheegay tala bixin aan siiyay inta isticmaalahayeen 14 way gudahoodina xanuunkii ay dhahan waa ka caafimaadeen ma sha Allah mana aadeen ma garat waa ka caafimaadeen waana run xanuun ka gudaha ka soo baxo hadduu xataa yahay ama bura ama wax yahay leenta mari kadib markaa xanuunka inuu jiray in kala waxa lagu cadeyn karaa waa inay scan ama raajta asmaysid marka tag laakiin ka hor adoo qarash iyo waxba ka bixin dhibaato kala marin waxaad isticmaashaa muxuu ahaa leentaas aamin intaasna waxaan u siinayaa dadka xanuunsan waayo dadka qaarkoodba dee maba awoodaanba dadka ma awoodaan marka hadda dad badan oo qarash dad u dalbi jiray ama dibadaha u keeni jiray hadday liintooda isticmaalaan haddii wax qarash oo ku baxayo ma laha liintaasi qof kasta waxaan oran lahaa gacanta ha ku qaato subax markuu gurigiisa ka soo baxayo sababtoo wax ku qabsan doono nobody knows qof og ma laha marka haddii wax ay ku qabsadaan
markiiba lintaas dilacso dhagax baa kugu dhacay dhiig baa kaa soo baxay markiiba ku qabo waa kuftay xabad duulayso meel ay ka timaad aba ninbaa bac kugu tiri liinta mari wax kastaba waa laga gudbay marka meeshii muxuu ahaa alcohol iyo waxyaabaha qofkaas loo isbitaal loola carari jiray liintaas ninka haysto faa'iido weyn buu haystaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idin ka codsanahayaa in aad sheergaraysaan barnaamijkan dadka walaalihiin ah oo aan maqlana u sheegtaan dadka waayeelka ahna aad u sheegtaan dadka ciyaalka yaryar for example oo ama neerfaha qaba ama qaba muxuu ahaa limoneyda ku dhacaysa malaariyada ku dhacaysa marsiiya wixii liinta cabi karo biyahaas kule liintaasi waa daawo maasha allah ah tijaabadeedii waa la soo sameeyey dadka maqlahayo oo dhanna arrintaasi islaamka ha gaarsiiyaan anigana kolleyti ilaahay baa abaalmarin ilaahay baan ka rabaa dadka kama rabo wax dhaqaalo leh wax interest kale kama rabo wax barnaamij kale dana kama rabo danahayga waxaa waaye qofka muslimka markuu caafimaad helo asagana waxbuu istari karaa dadkana waxbuu tari karaa soomaaliya oo burburka adag soo martayna oo dadka aan dhaqaalo aan haysanna waxbay u taraysaa asagoo gurigiisa jooga hadduu ay daawo u tahay maasha allah marka wax lagu tilmaamo lama yaqaano waxaan barnaamijkayga kusoo koobahayaa ilaahay ha idin xafido sananka oo dhan allaha u gargaaro dadka dhibaataysan allaha caafimaad siiyo qof kastoo muraad buu leeyahay muraadkiisa allaha u sahlo anigana muraadkayga waxaa waaye ilaahay agtiisa inaan darajo aan ka helo wax kale oo aniga jannatul firdaws igu soo duceeya aniga iyo ehelkayga xaasaskayga ciyaalkayga muslimiinta oo dhan meel kasta ay joogaan intaas haddaad igu soo duceysaan anigana waa idiin soo duceynayaa waxaana rajeynayaa inaa hadda wixii ka dambeeyana tababar badan aan sameeyo oo dadka bacdama anigu aan laabanahayo meesha aan ku laabanahayo oo ah meeshii aan ka imid waxaa la rabaa dadka su-aalo badan hadda aniga habeenkii iyo maalintii intaasoo qof ayaa telefoon igu soo waca marka qaar aan maqal baa jiro qaar aan weli arrinta aan soo gaarin baa jira dadka kale oo aan u sheegay ama videogan daawada ama salaf mediahan daawada dadka islaamka oo dhan ha gaarsiiyaan waa cabdi axmed caabi oo mar labaad ileh soo dhawaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu